رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal marka hore waa idin wada salaamayaa marka labaadna waxaan idinka cudur daaran anigoo waxoogaa idinka soo daahay waqtiyadu waa kala duwan yihiin ka raali noqda insha allahu tacaala waxaan ku ballansanayn caawa qaybtii afraad taqriiban waa qaybtii afraad oo khaladaadka laga gala tarbiyada iyo caruurta laga galo maadaama waxoogaa caawa aad sugayseen ama aan daahnay waxaan isku dayay inaan aad u koobo haddii alla idmo kadib waxaan insha allahu jeclahay inaan ka dambaysiino hal habeen oo ku saabsan afartii muxaadaro iyo waxa qof walba maskaxdaada ku jira khaladaadka caruurta laga galo inaynu ku saabsan su-aalo ku saabsan iyo aragtidiina iyo commentigiina iyo waxaad u baahan tihiin aynu habeen laydinka qoro ood u gudbisaan waa su-aalaha keliya laakiin waa mawduucan aan ka hadlayno oo dadku caruur bay wada leeyihiin khaladaadka iyo la tashi iyo talooyin waxay u baahan yihiin inaan habeen kale u fadhiisano haddii alla imayntaynaa mawduuc kale aynaa bilaabin ilaan mawduuceena guud wuxuu ahaa al usra yacni qoyska ayaan rabnaa inaan ka hadalno waxaan geli doonaa insha allahu tacaala qoysku meeshuu ka soo askumo oo ah zawjka iyo zawjada iyo waxyaabaha looga baahan yahay qof walba ayaa inoo dambeeya insha allahu tacaala marka caawa qaybtan aan rabno inaan ku gebagabayno waxaa ka mid a waa khaladaadkaan sheegaynaa khaladaadka waxaa ka mid a in waalidku waa aabbaha iyo hooyadu ay ilmaha uga caado dhigaan inuu ku xadgudbo dadka kale balada u fiirso dadka kale inuu ku xadgudbo in caado looga dhigo oo uu dadka kale waxyeeleeyo oo caruurta uu soo dilo oo dil la yidhaahdo iska celi la yidhaahdo oo haddii sidaa marka uu ilmuhu ku barbaaro marka uu weynaado wuxuu dareemayaa ama wuxuu u malayn wax walba bilquwa awood iyo xoog in lagu qaato ayuu u malaynayaa marka sidaasaa wuxuu noqonayaa qof mujtamaca aan la dhaqmi karin qof aan bulshada la dhaqmi karin ayuu noqonayaa marka inaan caado looga dhigin usluubka noocaasa aan la barin ayaa ka mid a waxyaabaha khaladaadka maaragtay runtii la sameeyo waxaa ka mid a oo kale in looga waktiga oo aan laga faa'iidaysanin oo ilmihii ood u jeedo maanta dhan tvgii iska ag fadhiya saacaad tuwaala hor fadhiya taleefonkii ku jira mashquulsan aan marna wax kale ka faa'iidaysanin adiguna aad aragto marnana aadan yac oranaynin war waxaanaa fiican iyo kadaa xun aan la oranaynin cuntadaa la siiyaa faraha laga qaadaa walidaalika ayuha alaxiba anagu dadkeennii salafka ah ee salafu hadi lumma oo ugu khayr badnaa oo ugu fiicnaa waxaa ka mid ah cabdullaahi bni mascuud radia allahu canhu wa ardaah wuxuu yidhi ma aanan ka nidaamoonin oo kama shallaayin inta aan ka shallaayay maalin ilaahay uu keenay subxaanah oo cimrigaygu uu nusqaamay oo wax iga dhacay oo camalkaygu uusan ziyaadin inta aan ka qoomameeye weligay wax kaloon ka qoomameeye ma jira buuri cabdullahi bni mascuud sidaasoo kale buu xasanulbasri isaguna wuxuu lahaa adragtu aqwaaman waxaan soo gaadhay qoom asxaabtii buu u jeedaa ilan isagu taabici buu ahaa asxaabtii baan soo gaadhay dad waxaan soo gaaray sida maanta idinku dadow dirhamka iyo diinaarka aad ugu dadaalaysaan si ka daran bay iyagu wakhtigooda ugu dadaali jireen annagu maanta haddii layna weydiiyo doolarka sidaan ugu dadaalayno oo maaragtay labada shaqa loo tumaayo oo loo saaran yahay taraag iyo tagsi loo saaran yahay oo la halmaamay reerkii oo caruurtii loo halmaamay oo salaadii la halmaamay oo masaajid la halmaamay oo maaragtay qofku intaas keli uu ku mashquulay sidaasi ka daran bay dadkaasi wakhtigooda ugu dadaali jireen khaladaadka waxaa ka mid a lagu sameeya caruurta tadabdub fi lmucaamala yacni mucaamaladii iyo qaabkaad ula dhaqanta caruurta inayna toos ahayn mar waxaa laga yaabaa hal arrin ood mar ku ciqaabtay marna inaad ku ammaanta ama farxad iyo qosol aad tusisaa suuragala tusaale haddaan soo qaato waxaa laga yaabaa
ilmaha wadartay marka qaarkood waalidka way garaacaan intuu gacanta u qaado oo ilmuhu gacanta ku dhufanaya waalidka ama hadal buu aan fiicnayn buu ku dhahaya waxaa laga yaabaa aabbihi hooyuhu markay labadooda keligood inay iska qoslaan oo ilmaha loo qoslo oo layidhaha ilmihiiba ama wax dilaaya ama wax maarata hadal buu dhahaya lagu qosqoslo haddii dad yimaadaan guriga oo lagu soo booqdo oo isla arrintii uu ilmuhu sameeyo gacanta kuu qaado waxaa laga yaabaa inaad markaaba aad disho ood isku laabto oo tirada idabdarrada uu samaynayo ama dadka kaleba kula yaabaan marka u fiirso mar waad ku qoslaysay waa markaad keligaa ahayd marna waad dilaysaa ama waad ka xun tahay marka ilmuhu wuxuu ku wareerayaa labadan mucaamaliya labadan dhaqan midkee saxan ma waxaa saxan kii hore mise kan dambaa marka tadabdub baa la yidhaahdaa marka walidaalikaba waxaa la rabaa waddo keliya in lagula dhaqmo carruurta oo iyaguna ay kaa arkaan ayaa loo baahan yahay waxaa ka mid a ayuhal axiba khaladaadka carruurta aan ka gallo in markay ooyaan wax la siiyo tusaale ilmahaaga oohintuba kuu bartay waa waraqatu daqti baa la yidhaahdaa waa wax uu wax kaagaga qaato marka wuxuu samaynayaa wuu ooyayaa markuu ooyaa adna aad siinaysaa ayib marka arrintaasina waa arrin iyaduna khalada wey walidaalika ayaa nin la odhan jiray maalik ibnu nabi nin doctor oo kale baa ka soo guuriyey baa wuxuu yidhi su-aal baa la weydiiyey nin baa wuxuu ku yidhi waxaan rabaa ilmahayga inaan tarbiyeeye sideen u tarbiyeeya wuxuu yidhi meequ jiraa ilmahagu da'diisu waa meeqa wuxuu yidhi wuxuu jiraa shahr waa hal bil ayuu jiraa wuxuu yidhi fatakal qitaar yani wakhtigii wuu ku dhaafay la tarbiyeyn lahaa wuxuu yidhi waan la yaabay laakiin gadaal waxaan ka ogaaday inay sax ahayd baan ogaaday muxuu ka wadaa wuxuu yidhi haddii marka uu ooyo ayaa wax la siinaya hooyada waad aragteen ilmaha markay ooyaan bay naaska siisaa ilmaheenna carruurta waad aragteen 5 jir iyo 4 jir iyo 6 jir iyo 10 jir wuxuu yahayba markuu iswaalo oo alaabta jajabiyo oo laga yaabo inuu ooyo oo ilmuhu dhinac iyo dhinac markaasaa la siiyaa marka wuxuu baranayaa inay tahay oohintu wax lagu qaato waraqatu daqti inay tahay iyada un in wax lagu helo waa waddo khaldan walidaalika buu ninkii wuxuu sii wada wuxuu yidhi hadduu ilmaha yar saa ku weynaado waad aragteen oo hadda adduunka waxaa loo samaystay waxa la yidhahda golaha ammaanka iyo united nationka iyo meel maaragtay laysugu tago oo haddee ciddii khaldan iyo waddankii waxayse halkaasaa lagu soo karbaashaayo cunaqabatayn ama lagu sameeyo ama marka wuxuu yidhi haddii uu sidaa ku barbaaro xaqiisa iyo magaaladiisa haddii laga qaato wuxuu samayn intuu tago united nationka buu hortooda ku ooyayaa markaasuu wuxuu u malaynayaa in oohintaa loogu soo celinaya marka waa tarbiya awalkeedii khaldamay ayuu noqonaya marka taasi waddo sax ah ma aha ilmuhu isagoo yar naftiisa in lagu bilaabo waxa saxda iyo waxa khaladka ah la kala bara ayaa fiican waxaa ka mida oo kale waxyaabaha khaladaadka ah in mar walba ilmaha looga digo bal u fiirso waa khalad in mar walba loogu digaayo mustaqbalkaaga ayaa xumaan haddii aad waxaan samayn weydo haddii aad maadadan ku dhacdo haddaad iskuulka 100% ka keeni weydo haddaad keensan weydo haddaad xisaabta ku fiicnaan weydo haddaad kan ku fiicnaan weydo yacni maxaa laga wadaa ilmihii dhan muyuulkiisii waxaad ku dhisaysaa ood ku xidhaysaa mustaqbalka la sheegiba inay tahay maadadan inuu ka soo baxo kadibna dee adduunkan uu wax helo dhakhtar uu noqdo injineer noqdo fulaan noqdo ma xuma in la shaqaysto ilmaheenuna ilmo fiican ay noqdaan oo ilmaha waxhaysta ee shaqaystabaa ka fiican midka kale siduu rasuulku sala allahu calayhi waali wasalam uu yidhi laakiin su-aashu waxa weeye meesha laga wadaay mustaqbalkiisii dhannaa waxaad ku xidhay maadada waxaad ku xidhay waxaanuu baranayo waxaad ku xidhay adduunyo keli abwaad ilaa hadda aad ku wareegaysaa marka inaan qaabka ilmihii loo tarbeeyo qaabka loola dhaqmana waa khalad weeyaan isaguna yuu noqonaya waxaa ka mid a khaladaadka aan carruurta ka gallo almuraaqaba daa'ima yani tasarufaadkiisa ee carruurtu ay samaynayaan inaad ku noqoto muraaqaba sida boolis daba taagan oo kale inaad tahay oo maalan waxaad baaraysaa gabadhaadii oo kale markay maanta baxday iskuulka ay aadoy timaado boorsadeediibaad yaad baaraysaa maxaa ku jira maxaa taleefonkiibaad baaraysaa yaa lala hadlay maanta lambaradii fiirinaysaa waxaad fiirinaysaa qolka ayaad gelaysaa gabadha iyo wiilka qolkoodii intaad midba qolkiisa gashaad baaraysaa sarirta hoosteedaad baaraysaa marka qaar waxaa laga yaabaa xitaa hooyooyinku intay wiilka soo qabtaan ama ay soo waxayaan bay u dhowaanayaan orinayaan inuu sigaar cabaya in kale afkiisii way fiir هذه وحال إلى تصرفات خلطان وي
على هذا الحد إن أضمرته وعلى الربا إلمها كورقب مراقبة صار دبجوك إلى المرحلة تربيضه ومستمرة ووقت غير بيجري ويين أهانن inaad maartay sidaa u muraaqabayso oo daba istaagto oo daba joogsato yayna arrintu ayna noqonin marka waxaa la rabaa taasi waxay keenaysaa natiijo cagsiya ayay keenaysaa wanaagna marka inuu ilmuhu marka dambe iska kaa xidhxidho inay maartay waxaaga lagaa ilaashado ina maaragtay wax walba intii la sameeyo la iska soo hagaajiyo waxba ma ogaan karaysid qof wuxuu noqon qof waliba qofka kale iska ilaali marka waxaa taa ka fiican inaad saaxiib ka dhigato inaad soo dhawayso ayaa ka fiican waxaa ka mid a walaalayaal waxyaabaha khaldan in aadan ilmahaaga si aadan dayn karaynin inaadan wax u sheegi karaynin yani aabbayaalka waad aragtay waxaa samee iyo waxaa daa labadaas keliya laga yaaba inaad ku dhaqanto saasina sax ma adduunkaad ogeyd ma wax badan baa jira thaqaafadii waa isbedelay kaljaraa isbedelay wax badan iyadoon isbedelin baa waxaa la rabaa rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam raxiim buu ahaa carruurta wuu la sheekaysan jiray wuu salaami jiray su-aal buu weydiin jiray isagoo yar bay soo ag fadhiisan jireen dadka waaweyn ayaa lasoo dhex fadhin jiray cabdullaahi ibnu cabaas isagoo yar waa kii cumar bin alkhadaab xitaa intuu soo kaado fii suurati nasri idaa jaa nasrullahi markii la fasirayay odayaal waaweyn buu la fadhi marka ma aha uun kan samee iyo kan daa keliya waxaa la rabaa hadduu su-aalku weydiiyo waa jawaabi inaad uga jawaabi karto musaarax in lala talin karo in lala sheekaysan karo ayaa loo baahanyay oo qaabkaa loola dhaqo waxaa ka mid a khaladaadka aan ka gelayna carruurta الصرامة والشدة وحلا هذا يعني لبا شيء مفهوماني لبا فهم أو لبضو خلطان باجرة أو مارتي تربيتك وخلطة مدي وحا ويان ككنانت زائد كا أو المها توازن كيسي يقاب كيسي بكرو منيس عروتو سمادا رقار هدي أما لغو بديو قعنقات أما الدين لغو بديو أما هنجبات لغو بديو أما عنانت لغو بديو إساقر نوحو نقونا يا خلخل باقلي mid kalena waxa weeyaan addalaalu zaa'id baa la yidhaahdaayo in laga badiyo jileecii iyo muyuucadii oo maaragtay wax alla wuxuu u baahdo saacaddu sheega hore laga siinaayo oo maaragtay cuntadii afka loogu guraayo oo wax walba yacni kaasina wuxuu waayayaa inuu isaguna ictimaad cala daat waxa la inuu is-ictimaado isagu uu wax qabsado qof iska dhigo labada marka labadooduba isku siba u tirtiraan baa la yidhahda shiddada waxaa la rabaa يعني قوان إيا حزمي قفكو هلا هذا لكن حزمي إيا قوانكو ومد الموكو وبرنا يو وحان لما السمين يدل وإنا للسمين لكن معها ككنان إيا عنان إيا دل إيا تاسمع مركا لبضو ويكال الدوين لبضا مفهوم با لبا خلطان ويقونا وحا كميدا خلطات كان كجلينا عرورتا طرد من البيت إن ليلة قرقا لغا عيرينيا هدو وحسمي أدونكو كيما وقتكو كيما tuuladii aad ku noolayd ee aabbihii hooya kugu dhaleen ee baadiyaha ayda degi jirteen ee ayeeyi iyo abti iyo adeer iyo habaryar iyo eedda kula joogeen ma aha meesha aad ku nooshahay waxaad ku nooshahay meel aan eeddiya habaryar iyo awowtoona joogin ee meel ilmuhu uusan qof kuu soo celiya jirin waagaa haddaad guriga ka cayriso wuxuu u tegi jiray ayeeyadii wuxuu u tegi jiray abtigii wuxuu u tegi jiray habaryartii mid waliba marka intuu soo qaadabaa laguu soo celin jiray oo la odhan jiray orod hooyadaa u tag orod aabbaha u tag maanta hadduu gurigaa ka tago wuxuu u tegayaa guruub iyo isaga la fil ah oo u yeeraya oo xumaanta baraya oo qashinka baraya oo daraagiskii baraya dibna kugu soo noqon maayo kuuna baahan maayo ogow kuma baahna wuxuu kaa waayay buu bal ka helayaa agtooda sidaas darteed waan ku celcelinayaa waalidiinteenna soomaaliyeed qaar baa weli aad moodaa tuuladay ku dhasheen inay joogaan wahada laa yumkin meeshiina lama joogo walaalayaal waa inaad ogaato haddaad ilmahaaga guriga caawa ka cayriso wiilkaaga iyo gabartaada inayna kuu soo noqonaynin waa inaad ku tala gasho marka ficilka aad samaysay baa ka weyn iyagoo gurigaaga kuu jooga wacdi oo wax u sheeg oo waani oo u ducee oo sadaqo u bixi oo xajka u aad oo iyaga dartooda wax u samee oo qaabka ula dhaqan oo sasab oo wanaag oo waxay rabaan u samee oo guriga ugu samee wixii fiican laakiin ha ka cayrinin waxba kuu keeni mayso inaad cayriso keeni mayso marka waalid walba waxaan rajaynayaa inuu ka waantoomo arrinta noocaas waxaa ka mid a waxyaabaha khaladaadka ah oo tarbiyada maanta khaldaya tadakhul aakhariin fi tarbiyati alawlaad yacni mararka qaarkood waagii hore ee ilmaha adugu markaad dhasho aabbihii hooyaa jooga awoowo iyo ayeeyabaa ku yeelan jiray amar oo hadda waxay ogaan jireen iyo qaabkii loo dhaqmi jiray bay garanayaan
marka waxay leeyihiin maanta waa la isbedelay waxaan idinku ilmihii ma hagaajinaysaan waad artay waalidka markuu kula nool yahay ilmaha idinkaa khaldaaya idinkaa waxaynay marka waxay ogaan jireen iyo waxa adigu maanta aad ogtaha waa kala labo marka awow iyo ayeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha xifdo ha ilaaliya laakiin tarbiyada maanta casrigee jirta wax weyn waxaa suuragala inayna ilmihii iyagu isu keenaynin islahjad fahmaynin isluqad fahmaynin iskaljar fahmaynin marka tadakhulka lagu gacan dhaafayo oo hooyihi aabba mararka qaarkood loo gacan dhaafayo iyaga naftooda waxay keeni kartaa dhibaato weyn bay ku keeni kartaa tarbiyada ha lala socdo waxaa ka mid ah khaladaadka walaalayaal ilmaheenna mararka qaarkood inaan u dirno waddamo kale iyaga oon reerna lahayn baad waxbarasho u diraysaa wa ficlan waana u wada dirnaa oo waa maaragtay ilmihii waddamada unbaa kala duwan tusaale haddaan soo qaato wiilkaagii ama gabadhaadii baa waxa u dirtay waddan kale u fog tusaale haddaan ka soo qaato jayna oo kale hadda shiinaha ama jayna dadku way aadaan waxbarashaa laga aadaa dhakhtarnimaa laga soo bartaa waddamadan yurub qaar ka mida oo kale waa la aadaayo aad baa loo aadaa tusaale markaad ka soo qaada marka wiil yar markaad u dirto halkaa ama gabar yar aad u dirto yaa la jooga maxaa lagu soo ilaahay subxaana wa tacaala inoo badbaadi dad fiicanoo waxaa jira intay aadeen oon ka warqabno jayno tageen soo bartay dhakhaatiirnimo oo wax fiican soo bartay laakiin waa boqolkii meeqay ka yihiin xumaantaa lagu sameeyaa waxaa layidhi ilmaha ugu akhlaaq xun iyo dhaqanka ugu xun iyo daroogada ugu xun iyo khamrada maaragtay meel walba taaloo lagu cabayo waxaa ugu badan dadka halkaasoo kale jooga inagoo halkaan joogna haddana halkaas ayaa suuragala inay kasii badan tahay walacalla inay dhallinyaro badan hadda inagala socdaan ee lifeka ay nagula jiraan oo halkaa jayna jooga laakiin akhlaaqiyaadka naga soo gaarhaya ee ardayda soomaaliyada halkaa jooga waa lagu halaagsamay tusaale markaan marka ka soo qaadno wiil yar markaad u dirto waddan kale oo aan akhlaaqiyaadkiisu faadsid ay tahay gabar yar markaad dirto ilaahay subxaana wa tacaala ha xifdiyo aan u ducayno laakiin waxaa lagu tusayaa waxa weeye inayna tarbiya saxa ayna ahayn tarbiya wanaagsan ayna ahayn waddamada islaamka iyo meeshii wax loo dira haddii xitaa la diraya ama isagoo waalidkeeda qaar baan ogahay oo halkan hadda aan ka hadlaya masaajidka idin kala hadlaya nala tukan jira oo daris aan nahay oo hadda naag degan oo rag badan intay ilmahooda kaxeeyeen la joogo oo la degan oo halkaa ku haya waa wax fiican ama haddii ay gabar tahay ha loo guuriyo wiilkeedii iyo maaragtay zawjkii guursaday hala raaciyo labadood ha israacaan wiil hadduu yahay gabadhii ha loo guuriyo ha israacan iyagoo qoysa meesha wax soo bartaan wax waa la baran karaa maanta marka almuhim khutuuradeeday leedahay anugu melihi lama aadi karo laakiin waxaan ka wadaa khatarteeda inaan wada ogaano ilaahay subxaanahu wa tacaala ha xifdiyo carruurteenna meelan joogna waxaa ka mid a walaalayaal khaladaadka aan ka galno carruurta in labada waalidka midkood midka kale uu xaqiro maalan aabbaha ayaa hooyada xaqiraya magacyo xunxunba inta badan aabbayaalkaa dulmiya gabdhaha oo dumarka dulmiya runtii markii la yidhaahdo ragga ayaa dulanku uu ku badan yahay inkasta oo gabdhow idinkuna hadde markii waddamadan la yimid hadda waxaa la yidhahdaa xaggiinay hawsha u badan tahay idinka ayay hawsha u badan tahay oo awoodda badan idinka haysta idinka hadda raggu inta badan idinka cabaadayaan laakiin waad yaabaysaa yacni raggii meelaha ay marayaan iyo ducfiga mararka qaar niyad xumo qaarka isku daya gabadh baa waa yaa igu timid masaajidkan waxay ka dacwoonaysay ninkeeda waxay tiri sheekh axmedow dhibaatada ay haysata waxa weeye ninkiiba haddaan laba kelima isla hadallaba boorsadiisu hore ka qaadanaya waa yaab bay ti war ninkan xagguu u socdaa war gurigan sooma degana soo isagu zawjkaygii maaha soo gurigan uma kiraysna xagguu ninkan u socdaa waa su-aal laba kelima haddayna dhex marto boorsadiisa waa qaadanaya alaabta urursan mindhaa laba mise 3 jeer anaa markhaati ka ah isagoo urursaday oo taagan ayaan u tegay oo gurigii maarata kaala qaba la leeyahay oo celi meeshaan ku celi marka yacni ninkaa waxaan ka wadaa waxaaba laga yaabaa fahamkiisu halkaasuu joogaa haddii aaba dumarkiiba la hadashaba qaar baa hore kasii cararaya oo bacdooda hore ka qaadanaya marka idinkuna allah idin barakeeye haddee ragga u dhimriya oo maarata ha loo naxariisto hadday idin dhibi jireen dhihina idinkuna ka aarsada marka almuhim labada qolo miday tahayba qolayna qolada kale carruurta hortooda yaan lagu xaqinin qofka kale aabbaha ha caayin hooyada ha caayin erayo xun ha ku odhanin ha aflagaadaynin gacanqaad yuuna dhicin umuurta aad iyo aad ha looga feejignaado in ilmaha hortooda lagu sameeyo waxaa ka mid a khaladaadka aan gelayno asdiqada xitaa ilmahaaga saaxiib buu leeyahy gabadhaada gabdho kaleoo la da-a jiro iskuulka la dhigta wiilkaaga wiilal kaleoo la da-a jira adaa guriga jooga
tusaale waxaa soo wacay gabadhaada gabadhii saaxiibadeeda ahayd waa qof fiican xumaan kale kuma ogid wiilka waxaa soo wacay wiilkii saaxiibkii ah ayaa soo wacay marka isagiibaad ihaanaysa ama waxaad leedahay ma jooga dheh waa maqan yahay waryaha ha u jawaabin hadal xun baad ka sheegaysaa waa cunug xun oo liita waa mid edab daran waa kan yacni waana saaxiibkiisii ogow saaxiibkuna waa wax weyn oo ruux maaragtay runti qofka labada qof ee saaxiibada waa dad is ilaaliyo wey marka waa in aan qofka naftiisa la xaqirin ixtiraam waa inuu ka arko sadiiqiisa inaad ixtiraamayso marka guriga uu yimaado hadduu wiil fiican yahay kaale adeer soo dhowow kaale habaryar soo dhowow kaale eedda imow la joog shaah u keen wax u keen qofkii ixtiraam ha dareemo wiilkaagiibaa xitaa farxaya oo la soo dhoweeya saaxiibkii gabadhaadibaa farxi markii la yidhaahdo orod caawa soo casuum gabadha saaxiibadaa ee jeceshahay oo wanaagsan gabadha kale ha soo casuumta gurigaaga keen cunto u samee soo dhowee martibaad noo tihiin caawa gabadhaada waxay dareemaysaa farxad waa markii ay dadku dad fiican yihiin melihi anigu dad ee liita oo akhlaaqiyaadkoodu dhintay ha lagu soo xaraysto laakiin waxaan leeyahay dadka fiican ilmahaagu markaad soo dhoweyso saaxiibkii farxad ayuu isaguna dareemaya marka insha allahu tacaala waxaa ka mid a waxyaabaha khaladaadka ah oon kusoo gebagabaynayo in la adeegsado darbi waxa la yidhahdo inaad gacan qaad ilmaha aad u adeegsato ama dil aad u adeegsato waa wasiilo iyaduna khaldan weeyaan wasiilo weliba waxay yidhahdaan culamaau tarbiya hadday intiqaam tahay ka aaragoosi markay u ekaatana waaba kasii daran tahay aaragoosi markay u ekaato waa maxay aaragoosi ilmihii baa wax sameeyey burkaad la boodaysa ama ulaad la boodaysa waxaa rabtaa inaad ka jarto marka taasi waa intiqaam ma aha tarbiyo ma aha hagaajin inaad ilmaha waxoogaa maaragtay la tuso inay jirto oo waxaa la odhan jiray calliqu sawta xaysu yaraahu asibyan yani meelaha ay arkayaan oo kale in loogu dhajiyo oo maaragtay halkaasoo kale la yidhaahdo maxaan ku rahdaa jaajarkiibaa yaalli iyo halkanaa yaalli iyo waxoogaa ha dareemaan keliya laakiin yaynan maaragtay noqonin mid loo adeegsado oo lagu dilo oo lagu garaaco weliba intiqaam iyo aragoosina yaynan noqonin insha allahu tacaala marka caawa si sariica sidaan idin ballan qaaday oo deg dega ayaan rabaa inaan uga baxo maadaamood muddo aad daahdeen intaasaan mawduuceennii kusoo gebagabaynaynaa waa mahadsantihiin wajazaakum allahu khayr wabaarak allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu